kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada dunida. daawadayaal kusoo dhawaada Shabeelle Channel. qodobada waaweyn warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ahna taliyaha guud ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa la sheegaya inuu dardargelinayo howlgal ka dhan ah ururka argagixisada Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay xerada ciidamada wadanka ila tiri lagu soo tababaray ay ku sugnaayeen ayaa sheegay inay dowladdiisu ay kor u qaadi doonto howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada. dowladda Soomaaliya ayaa waday howlgal ballaaran oo dalka guud ahaan looga sifeynayo ururkaas tan iyo markuu Xasan Sheekh xukunka dib ugu soo noqday. Soomaaliya ayaa la sheegay inay guula la taaban kara ka gaartay howlgalka ka dhanka ah argagixisada, taasoo dalal badan ay ka taageereen dhinaca hubka amba agabka ay u baahan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa misaba ka naqday la dagaalanka ururada waxqarbuda. dowladda ayaa guula taariikhiya ka gaartay furimaha hore ee dagaalka. dowladda ayaa xureysay deegaanadii ebed ugu badnaay tan iyo markii oo xukunka uu ku soo noqday dowladda cusub ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa guula taariikhiya ka soo hoysay deegaanada ay ka mid yihiin deegaanada Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. dowladda ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah ururada argagixisada ee dalka Soomaaliya ka dagaalamayay muddadii 15 sano ee ugu dambeysay. Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay guud ahaanba dalka ka xoreyso. dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu ku sugnay dalka Mareykanka ayuu sheegay inay dalka uga soo gabagabeynayaan muddo 1 sano, balse la dhihi ma karo taasoo madaxweynihii asiga ka horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey u qabsaday muddo 2 sano inuu dalka uga saarayo ururada argagixisada, balse Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muddo 5 sano uu joogay xukunka filla Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in xataa 3 degmo aysan dowladda Soomaaliya aysan xureyn. dowladda ayaa wada howlgallada inay dalka idil ay ku xureyso ururada argagixisada ee dalka. madaxweynaha ayaa wacad ku maray inuu wadi doono howlgallada buuxa ee dalka looga saarayo ururadaas argagixisada ayaa Soomaaliya ayaa dad muwaadiniin aad u badan ay ku naf waayeen tan iyo markii ay bilowday weerarada aadka u xuno ficilada shaydaaniga ee dalka lagu bartilmaameysanayo, taasoo ay weerar argagixiso ay ka fulisay magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya lagu dilay 10,000 oo wax galabsan. Soomaaliya ayaa u muuqata mid guddiga ka jidad keentay la dagaalanka ururada argagixisada. argagixisada ayaa ahay kuwa aad looga boqo muddooyinkii amba 10 sano ee ugu dambeeyay Soomaaliya. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ku lug lahayn howlgalkan ay dowladda Soomaaliya ee shacbiga deegaanada ay ku wadaan in looga saaro dalka idil. midowga Afrika ayaa joogay muddo gaarayso 10 sano, balse wax guula waaweyn aan ka gaarin. midowga Afrika ay gacanta ku haya meelaha aadka u muhiimka ah ee laboorka iyo dekedda magaalada Muqdisho iyo xarumaha waaweyn ee dowladda iyo maamul goboleedyada koonfur galbeed, taasoo ah inay midowga Afrika ee ururka Al-Shabaab aysan ka gaarin guul la taaban karo. shacbiga Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu baaqay in ay dagaal kala hortagaan kooxaha argagixisada ayaa u muuqda mid miro dhal noqday kadib markii la arkay iyadoo ururadaas la bacsanayo. argagixisada ayaa 10,000 oo Soomaaliya ay dhabbanayaal u yihiin, taasoo weerara bahalnimo ka geystay magaalada Muqdisho iyo koonfurta idil. dowladda Soomaaliya ayaa hadda wado dadaaladii ugu dambeeyay ee dalka looga saarayo ururadaas. hay'adaha ammaanka Soomaaliya nabad sugidda ayaa mar badan ku celcelisay inay ku aylaysay 10,000 argagixisa deegaanada kala duwan ee dalka Soomaaliya, iyadoo kaashanayso dalalka xulafada la ah Soomaaliya ee reer galbeedka. waxaa la sheegay in dalka Turkiga uu biiray dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Soomaaliya
diyaaradda dalka Turkiga Bayraktar TB2 ayaa la sheegay inay mid loo riyaaqay kadib markay wax ka bedeshay horumar weyn ka geysatay la dagaalanka ururadaas, taasoo ay dheg u saartay argagixisada kuna qasabtay inay cararaan sida la sheegayo. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Amaana Allah.